Magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabada ay xilka kula kala wareegayeen maamulkii hore ee magaalada Dhuusamareeb iyo maamulka cusub oo dhawaan loo soo magacaabay. Waxaana munaasabada ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid Xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa ugu horeyn munaasabada ka hadlay gudoomiyihii hore ee magaalada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle. Waxaan leenahay maamulka cusub soo dhawaada hambalyo hashii 12 bilood oo abaarta iyo colaadda isugu jirta soo ilaalinaynay dambarkeedii dadkaan inaad u listaan u diyaar garooba dukumiintigii duqa magaalada waa idinku wareejinayaa annaguna dabadda kama ahiin haddaad naga hadlaydaanna waa idinla talaynaa haddaad hagaajidaanna waa idin garab istaagaynaa. gudoomiyaha cusub ee magaalada Dhuusamareeb xilkana maanta la wareegay Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geeda Qurow ayaa isna waxa uu ka hadlay munaasabadan xil wareejinta ah. waxaan marka soo jeedinaa Galmudug wada fiican ay ku socotaa xil wareejina waxay ka bilaabatay hay'adaha amniga booliska iyo nabad sugidda ee waadhowe maanta waxa ku xigta midaan waxaan rajaynaynaa sidoo kale inay madaxda wasiirada iyo madaxweynayaalka isaas oo kale ay xil wareejintu u socoto Soomaaliya oo dhan inaan tusaale u noqon reer Galmudug waxa la yiraahdaa waxay tusaale u yihiin dad dagaal waay maduhu waxay yiraahdaan meeshaas markii la yiraahdo Galmudug iyo dadka degan dagaal laga malaynaa waxa la rabaa isbedel iyo horumar iyo isla shaqayn iyo xil isku wareejin iyo isgarab istaag inaan Soomaalidu nooga dhisan. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose Galmudug Durraan Maxamed Samatar ayaa waxa uu isna ka hadlay munaasabadan ay xilalka kula kala wareegayeen maamulkii hore ee magaalada Dhuusamareeb iyo maamulka cusub waxa uu bogaadiyay sida munaasabadu u dhacday. waxaan u hambalyeeynayaa oo kale Macalin Cabdiraxmaan Geeda Qurow asna ama hore ha uga tago ama haatan ha yimaadee hawlba horta la tiro badan inuu dhameystiro waxa Macalin Nuur bilaabay inuu meelsha Macalin Nuur dhigay inta ka qaado adduunka waa qori isku dhiiba meel kale uu geeyo oo ka qurux badan meeshaas midaan kale tan waa tadawurka adduunka jiro oo waa qori isku dhiib qofba qof buu kala wareegayaa meesha uu joogo. ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid oo munaasabada soo gabagabeeyay ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay tahay mid taariikhi ah isla markaana loo baahan yahay in mas'uuliyiintii hore iyo kuwa dambe sidaas xilalka ula kala wareegaan. aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida aad u soo xaadirteen gudoomiyaha cusub waxaan ugu baaqayaa maamuladii degmooyinka waaxaha dhalinyarada iyo haweenka inuu ku sii shaqeeyo wixii uu ku dari karana uu ku daro inta joogta hadda khibraddoodana ka faa'iideysto. Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb.